horta wariye Cali Nuur Salaad sifada uu ku xiran yahay inay sharci ahayn iyo qodobada dastuuriga waxaas oo dhan waxa sheegay xildhibaankii ugu horeeyay laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo madaxweynaha maalinta uu musharaxa ahaa khudbadiisa waxaa kamid ahaa dadka fikirkooda lagu handadaayo qof aragtideeda lagu caburinayo kala duwanaanshaha afkaarta ma diidi doono dadka kuma xirayno maantana waxaa socoto wiil yar hadduu wax ku soo qoro Facebooka hadduu yahay shaqaale wasaaradda la tagaa waxa leeyahay mushaarka laga joojiyo shaqada laga saaro hadduu mid kale yahay haddii intaas wax looga qaban waayo waxa la sameeyaa waa la weeraraa waa la xiraa dawladda waxaa ku ceeba ayadoo dimuqraadiyad sheeganayso inay dadka afkaarahooda saxaafadan wixii ay soo marto waa la ogyahay dawladda haday yeelato dhaqanka argagixisada ee 2006 iyo 7 iyo 8 ilaa 11 wadanka ka jiray ee la dili jiray wariyaasha ee habeenkii loo boodi jiray ee idaacadaha la balqaysan jiray marka waxay noqonahay xaaladda hadda lagu jiro mid ka bedelan in la galo waa la og yahay 2021 wadankan ka dhacay wixii ka dhacay waxa sababtu u ah waxay ahayd caburinta shacabka iyo dadkan yaa mar labaad lagu qasbin badbaado qaranti iyo qabyaaladii iyo balaayadii iyo banaanbixi yaan la keenin madaxweynuhu wuxuu kamid ahaa dadka musharaxiinta wadankan taagnaa oo lahaa dalka hala badbaadiyo inuu maanta soo madaxweynaha waxaan ay hoostiisa ku dhacayaan dadka la xiraayo sida diktatoriyadii loo dhaqmaayo dadka ikhtiyaarka laga qaadayo waxaas oo dhan dambi waaye qodobada iyo xeerka ugu yaqaana madaxweynaha qof wadankan joogi jira waaye madaxweyne waxaan cod dheer kugu leenahay anaga xildhibaanada golaha shacabka ah wariye Cali Nuur Salaad xorriyadiisa ha helo mid kale waxa la rabaa anshaxumo inay booliska qeexaan horto anshaxumo maxaa la dhahaa anshaxumo waxa loo yaqaan sharciga ma yaqaanaan horto war waxaas waa ceeb boolisku markay hadlaayaan hadal asluubaysan ha ku hadlaan dadkayna sumcad dilin iyo sharafka ka qaad mid kale qof oo tuhunsana ah sharciga ma qabo in la soo sawiro horto sharciga qofka markii eeda lagu cadeeyo ka bacdi oo dambiilo noqdo la sawiri karaa laakiin qof dhan oo muxtarima oo sharaf la bari waa qofka ilaa dambiga looga cadeeyo in inta la soo sawiro sumcadiisa iyo sharafkiisa lagu cayaarayo madaxweyne waxa leenahay waxaas ha ka joogan waxa sameeynaayo taliska booliska ciidamada aday ku hoos tagaan madaxweyne warkaas dib ugu noqo xorriyadiisa wariyahaas ha helo ummadda kale oo Soomaaliyeed oo la handadaayana ha la joojiyo handadaad wadanka dad lagu yaqaan iyo cagajugleen iyo ikhtiyaarka qaadid haddii ay ku witihiin iscadeey halida ogaaday haddii kale dadka handadaada iyo laga dhaafo xildhibaanka golaha shacabka dhahay waa li handaday 4 iyo 5 la handaday hay'adii dawladda iyo ciidamada waxa loo diray dadkan oo shacabka oo dawladda taageerayaasheeda u ama u shaqeeyo oo aragtidooda sheegay ma ahane waxa loo diray waa inay amniga iyo nabadgelyada iyo nimanka wadankan uu ka hana qaadi waayay ee argagixisada in la dagaalamaan ay handadaan kuwaas ma handadi karaan taas cagsigeeda ayaga mar la handadaa marka inay dadka masaakiinta iyo kuwa taagta daran iyo shacabki iyo waxaas ay handadaan waa ku ceeb madaxweynuhu arrinkaas soo farageli laamaha booliska hadaada ka warqabin waxa ay ku howlan yihiin waxa ay ka shaqeeyayaan wixii loo diray maahan wax badan aan ognahay laakiin dawladnimada u tureynaa madaxweynuhu laamaha amniga shacabka iyo saxaafadda ha ka leexdaan handadaadana ha ka dhaafaan sidoo kale waxaan rabaa wixii ceelasha biyaha ka dhacayna ka hadlo horta ceelasha biyaha waxa ka dhacay dambi jariime ah maxkamad wax way xukumi kartaa laakiin xukun meeshaas oo ma bixin maxkamadda nimankaas niman tuuga ah hadda ka hor isku dayeen way u socowaysa maxkamadda oo koonfur galbeed diiday racfaanka oo meeshaas wuxuu yiri waxaan dukumeentiyaal sax ma hadda ayadoona la ogeyn lacag la bixiyay qof gurigeeda ku dhalatay aabeed ku duugan yahay awooweed ku duugan yahay mid kale sharciga wuxuu leeyahay daahfurnaan isla xisaabtan madaxweyne lafta gareena fariina halka uga direena wixii meeshaas ka dhacay haday waxa fuliyay ay koonfur galbeed yihiin madaxweynuhu hoos u fiiro waxaas inkastoo aan maqla waxa fuliyay waa nabad sugid iyo military goorga boolis isku bedeleen oo dacwooyinka inay galaan ay fuliyaan loo dirayna ma sheegi karna anaga booliska iyo militariga federaalka xukumo madaxweyne xasanow 2016 wadanka wixii ka jiro waa la ogaa hadda 5 sano oo la soo dhaafay siyaasadaha iyo waxyaabo kale hal isku haya laakiin dhul ma jirin la boobay dawladda maxamed siyaad waxa ay eersato waa dhul horta waa ina fahamtaa لأن قف إسكو سعطة إيمانا يا قف إسلامي تقف كذا وحوليه ونوار نقش هذا الدوكيمنت يا هستا أنا إسكاله وحصورة لوسو ديدي حنتي وحلقويا شالله بس يابد إنا شقيستي إنا دحال كويش لكن قفها هبيك سو قاعد دوكيمنت يا سو قاعد دد غوريو دغنا عقف لقليها العقل سو قادا ورقرصور كدل كان يو ودن كان أدا مدحوينه ka ada aakhir lagu weydiiyaa wixii shacabka ceelasha biyaha waxa ka socdo guryaha la gubaayo la jajabinaayo dad habeen madow hurdaayo masaakiina saas wax looma fuliyo hadii la fuliyahay waa in gal la furo hadii xataa wax laga xukumay idaacadaha la geeyo shacabka dhan ogaadaan loo sheego inay guuraan digniin la siiyo
xaqay u leeyihiin inay ayagana dacwada ay dib u eegis qaataan laakiin habeen madow horta waxaa la dhahaa cayaar maxaa habeen loo tumaa cayaar waxaa habeen loo tumaa waxaa lagu qarihaa hadda dawladdu waxay ka shaqeeyaan habeen hadda waxaa dhacday guri ku yaallo oo warshada oo ku yaallo wadajir galabha waa warshad dhan oo caana oo reer Soomaaliyeed leeyihiin oo 60kii agaheedii la dhisay oo xataa naqshadaha Soomaaliya markii dhulkaas wadajir iyo dharkeelle iyo waa bari la cabiraayay tilmaam looga dhigi jiray galab dhaweeto ciidana tagay booliska annaga xildhibaanaha meesha tagnay maqrib waa jimcana waa la dhisaa horta dadka guryahooda xalaasha dhisay maalinta caday dhistaa jimco waxba lama dhiso midda labaad boolis wax ma dhiso boolis goormo isku bedel ciidamada waxay oo injineer iyo waxaas booliska ku wareegsan waa la dhisaa jimco waaye in wax la xadaayo qofka aqli waa u jeedaa war ilaahay ka cabsooda dhulkaana ka leexda ummadana ha caburinina dadka lama caburi karo wassalaamu calaykum waraxmatullaah